dhashayo dantu waa midnimadeed kala qaadad laga jira عثمان محمد حسن شوتي وقدومي أوركي دليرة النوم beesha baadacade oo kamida beelaha dega magaalada Jowhar iyo deegaanada u simaada Hirshabeelle waxay maanta magaalada Jowhar ay ku doorteen gudoomiye ku xigeenkiisa iyo xogeeyaha beesha waxa ka soo qayb galay doorashada hulka odayaasha beesha dhalinyaro iyo haween haddaba sidii u dhacday doorashada bal aan sal fiirino اسمان عادو جابية على همباكر كهاجا سورن اسمان عادو جابية على همباكر كهاجا سورن عدالتكم معها ملشعيه بكركها عدسادي عدالتكم معها ملشعيه بكركها عدسادي علول سمي وانا هق عنا كولا وذاك علول سمي وانا هق عنا كولا وذاك هوينك على هاي برقوقو حكتا هوينك على هاي برقوقو حكتا maanta oo taariikhda ay ku beegan tahay 16 bishii 7 2022 maalin jimco ah ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu noo suuro galiyay inaan isugu nimaano shir guud ee beesha baadacado kaas oo lagu dooranayo gudoomiye iyo gudoomiye ku xigeen iyo xoghayn inta kadib waxaan gudagalaynaa barnaamijkeena dhexda ka galaynaa waxaa farxadii ah guulnaya ah aadna qalbigayga iyo niyadayda ay ku dagaysaa intaanoo dhalinyaro ah dadkayga ah iyo ehelkayga ah oo maanta joogta Jowhar aad dadka xilka idin hay la xisaabtantaan cid walba ha ahaad reer Jowhar tahay Jowhar xil ku leedahay wasiirka meesha aad qaada kar bir gabdhahan ay ka soo bixi karaan wiilashaasi uu ka soo bixi karaa agaasimaha adinka inuu wadi ka baa karaa ilaa waa istiidka joogtaan caasimadii wax lagu qaadanaad joogtaan adinkoo jooga inaad wax isweydii waysaan inta aad haysataan hadaad ku qanacdeen dadkeena xilka ama wax soo raacdaysiyaan nala eedina nala dhin hadhow waxaad jiira ku qaadateen iyo qadaraaskaad iska cuntiin iyo korkaynaad wax iskiga qaadatiin yaan lagugu eedin ilaa beerihiinna iyo wixii neer iyo xoolihiin hadday idinku filan yihiin qofkan yaan la eedin hadday idinku filnaano xisaabta dadka iyo waxaad ku leediin xuquuqda aad rabtiinna adinkoo isku xiran wixiina doonataan qofkii soo dhaweysaan markaad u baahataan u yeerataan adinkoo jamaca xisaabteedii ka jirta aad soo qorataan haddaad budget hay-adeed haysataan intaad qorataan cidda ay jirto aad la xiriirtaan intaan maanta marka inay imaado ay intaan ka dhalinyaro ah maanta doorasho samayso ay ka soo dhax baxdo si officially ah bulshada ummadda aad wax la qaybsataan ummadda xaqiiqiyan waxaan idin qiraa waxba idin kama qabaan adinka wixiina doonanin qofku wuxuu doonto cidna waxba qofkaada waxad adiga leedahay cidna ma haysan karto laakiin intaan barnaamij lagu doonay intaan iska dhaafay 5 ruux barnaamij ah lagu doonay la soo way qofka yiraahdo intaan ha ka soo dhaxbaxo 5 ruux anagoo ah inta baxnay ama maamul gobol tagnay ama degmo tagnay ama wasaarad tagnay ama madaxtooyo tagnay ama isbitaal tagnay maanta waa soo weyn intaan ha ka soo dhaxbaxdo ma jirto shakhsi waa laga yaabaa wax lagu doonto shakhsina waa lagu ballaminaa waxa lagu leeyahay mar kale niyo iska raala markaan waa ku gudubtay mar kale maalin kasta waa biriyad joogtaade marka in aad isku tashataan aniga yoolka aan lahay ma ahayn in aad ii sheeg maxuu ahay dad dhibaataysan ama dad xuquuq ay leeyihiin aad u socotaan waxaad leedihiin isku xirnaan iyo midnimo iyo dadnimo iyo ma aragtay isjacayl kiina xanuunsan aad ka warqabtaan kiina ii sheeg maxuu duruufaysan aad afkaaga ugu adeegto waxa ugu yar jaabkaad adoo wax ka bixina walaalkii wax haysta hadaad soo bandhigto wuxuu awoodo intuu sadaqaysto Soomaali kale inta aad diris latiin inta qaaraan iyo waxaad ku bixisaan gudihiina aad ku bixiseen diyaar u maanta dad diris kula waxba gaaray dad asxaabtihiin dad ganacsi dikal dad shaqo wadaagtiin wixii gaar waxa ugu hore wax bixiyay adoo sharaftaadii shatiga dilaalna dadtaada guud oo dadkaaga inaad bixisidna waxa laga yaabaa inaad wax badan ka fikirto waxba ku heli baa aad tiraahdo justification ka keento taasna ay kula fududahay sida taas kula fududahay laba jibaarkaaga taada ku bixi si aad wax badan u gaarto marka waa ku faraxsanahay in barnaamijkii soo bilawnay talaadadii maanta intaan marayo in ka sii badan waa idinka rajaynaya waqti aan nahayo waqti kululna waa la joogaa waqti aad u qiimo badanna waa soo bixiseen maanta kalsoonidiina ku doorto dhalinyartaas 6 ruux oo gabdhaha iyo wiilasha iskugu jiro rabo in idii hogaamiyaan
markaad doorataan meesha ugu kala tegina xisaabta igaad ugu daba fadhisin wasiir iyo xildhibaan iyo agaasimo iyo nin hay-ad u shaqeeya wax jirabo iyo dadka wax bartay steepka ay kala yihiin hadduu yahay caafimaad inta caafimaad ah hadduu neersan yahay hadduu medicine yahay hadduu yahay lab hadduu yahay waxaas qayb caafimaad qaybtii beeraha sidoo kale qaybta xanaanada nin walba bahashiisa lala doono tan ganacsiga kambaniyaal jiro oo hay-adaha wax ku bixiyo meeshaad haddaad raadinaysa dhowr $40,000 faa'iido bisha qaato ayda naftirkeeda budget aad u leedahay maamulka degmadii iyo kii gobolkii iyo mas'uuliyiintiinaba waxa idinka jira saad u heshaan isku duubni intaan iyo ka sii badan aad ku helaysaan inaad ku soo dhawaataan anigaana waxa iska bilaabayo positionkaasaan idin hayaa wixii xisaabahoo idinkaga jiro waxaad istiraan hadda halkan aan joogo training ku bixiyay 3 maalmood hadda training kale ku sii howla shaqo aanu joogay intaas haddaad maanta intaan aan garanayo cid kale inta facilitator kama noqoteen adeega kale kama noqoteen waxba kale kama samaysan adinka idin kala soo xiriir laakiin intaan inuu joogto magaalada marka hore leeyahay soo sheegay si wax laga helo marka waa mahadsantihiin intaas waa guubaabo iga raalli ahaado waana farxadaydii intaas inaan helo maanta walaal ah hadafkii iyo barnaamijkii aan lahayn in uu gaaro heerkan soo gaaro. Assalaamu calaykum. Waxaa farxad weyn ii ah dhalinyarada. Assalaamu calaykum. Waxaa farxad weyn ii ah dhalinyarada gobolka Shabeellada Dhexe beesha Baadcado isu soo xushay gudoomiye ku xigeen iyo agaasime waan ku faraxsanahay horumarkooda waxaana ku gubaabinaa inay hor u socdaan anakoo ah ururkii beesha Baadcado ee hoolkan iskugu nimid aan ku dooranayno gudoomiye iyo gudoomiye ku xigeen iyo xogeeye aad u jeedaan inaan howlkan ku jirno dadka qalqiga meesha ku jirana aad u jeedaan inkastoo aan joor in badan laamiga aan saarnay oo garabkeygana laga muuqan jirin maantana garabkeyga wax badan ay fadhiyaan alxamdulillaah ilaah maada iskale meeshaan waxaa ilaah u mahad celinaynaa anukoo oo beesha Baadcado oo ururka dhalinyarada meeshaan gudoomiye iyo gudoomiye ku xigeen iyo xogeeye ku dooranayso wax badan aan suweynay waxa waaye beledka wax badan la sheegaa laamiga ma saarnaa leeyahay inkastoo anaga oo dadka nagu xafaleeyaan beesha Baadcado hadanaay cida gurigooda iyo beertooda iyo dugsi quraankooda iyo jawaane laamiga iyo siyaasadda maxaa soo geliyay laamiga nagal dhaa oo in badan oo leeyahay xafaliyay aniga waxa waaye laamiga aan saarnaa iyo maamulka agtiisa maanta alxamdulillah horta waxaan ku maasanahay intaan oo meesha isku timid oo nin walba oo title kula meesha beledka haatan waxaa kelmado ka kooban siinayna musharaxiinta halkan doonaya inay tartan ugu qayb galaan waa idin salaamay dhammaan beeshayda maanta waxaan u taaganahay musharax gudoomiyaha beesha Baadcado ee gobolka Shabeellaha Dhexe. bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacayga waa Dalsan Maxamed Faarax u taagan musharax gudoomiyaha ururka dhalinyarada beeshayda waxaan maanta u taaganahay inaan noqdo musharaxii gudoominayay arrimaha ama axwaasha dhalinyarada beesha Baadcado guud ahaan ee magaalada Jowhar waxbarashadeyda magacayga haddaan ka bilaabo magacayga waa Cismaan Maxamed Xasan waxaan ku magac dheerahay Cismaan Shuuti waxbarashadeyda dugsi hoose iyo dugsi dhexe iyo dugsi sare waxaan ku qaatay iskuulka Sheekh Xanafi ee magaalada Jowhar ilaa heer jaamacadeed waxaan ku qaatay magaalada Jowhar jaamacadda waxaan ka qalin jibiyay Plasma University Jowhar campus waxaan bartay guud ahaan Health Science Department of Medical Lab ama waxa loo yaqaano shaybaar inta kadib waxaan filayaa in haddii lay doorto aan dhammaan axwaasha iyo arrimaha dhalinta aan isku dubaridi doono si allaale iyo si dhalinta ku qanacsan tahayna aan ugu adeegi doono
wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. ما شاء الله ولكن عثمان محمد حسن آدي أيوة مهسيني أدنى وحن وحجننا مرشح محمد عبدي أبيكر سوق المديس كو أدنى هالكان وجدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي ضميسر محمد عبدي أبيكر ku dhashtay magaalada Jowhar kuna wax bartay heer dugsi dhexe ilaa dugsi sare ah magaalada Jowhar gaar ahaan iskuulka hoose dhexe sare ee Horseed intaas kadib heer jaamacad waxaan ka qaatay Bachelor Information Technology Department Computer Science baajkayga waa IT waxaan aad iyo aad u jeclahay dhalinyarada gobolka Shabeellaha Dhexe gaar ahaan beesha in aan isku xiro xiritaan anigoona ka soo shaqeey jiraybo aan wiilgay ka fadhiisan kulamada ay qabtaan dhalinyarada gobolka Shabeellaha Dhexe mar walba aan heegan u ahay waxaan hayaa dhammaan dhalinyarada dhan daatooyinka gobolka Shabeellaha Dhexe waxaan ay musharax u taagan gudiga dhalinyarada beesha ee gobolka Shabeellaha Dhexe waxaan jeclahay insha Allah in dhalinyarada wax badan u qaban doono duureera dilii doorta gudoomiyaha insha Allah waan mahadsantiin dhammaan waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay dhammaan dhalinyarta ka soo qayb gashay odayaasha gabdhaha ururada beesha Baadcadde waxaan ahay musharax u taagan gudoomiyaha dhalinyarada beesha Baadcadde waxaan gudagali doonaa codbixintii tooska ahayd inta magac hadda noo qoran waxaan rabaa labadii ruux ee ku tartantay xilka gudoomiyenimo maxamed عثمان محمد حسن شوتة iyo عبدي محمد أبيكر waxay kala heleen labada cod Shoote oo helay 22 cod iyo Abikar oo helay 18 Abdi Maxamed Abikar oo helay 18 cod saasna waxa ku guuleystay guusha ay ku raacday iyo codkii Usmaan Maxamed Xasan Shoote oo gudoomiye ururkii dhalinyarada noqday waxaan u gudbi doonaa qaybta labaad gudoomiye ku xigeenka ay ku tartami doonaan deeqo iyo dalsan labadaasna insha Allah inaad u codaysaan sideed labadii hore ugu codayseen siko anigoo deeq Usmaan Xasan waxaan u tartamayaa gudoomiye ku xigeenka ururka beesha Baadcadde ee gobolka Shabeellaha Dhexe waxaan u tanaasulay walaashay dalsan waxaa ku guuleystay walaashay deeqana ay ugu tanaasushay xilkaasina maanta laga bilaabo gudoomiye ku xigeenka ah dalsan maxamed faarax soo dhawow dalsan qaybta labaad waxaan u gudbaynaa marka maadaama gudoomiyihiina helnay gudoomiye ku xigeenkiina helnay in aan dooranno xogayaha intii aan rabnay ee noo idlaatay hadda laga bilaabo maanta dadkaas ayaa xilkii ayaga u magacaabnay ayaga cidii macnaha isku wada doono intiinana waxa noqon doontiin dad la shaqeynayo oo maraajic ah nin walbo meesha hoosha ka wada karo oo ka wada doona inta marka saa u si dhameystirna waxyaabaha yar yar oo noo heray gudoomiyihii koowaad ee aan dooranay beelweynta beesha Baadcadde walaalkeen Usmaan Maxamed Xasan ayaa halkan ku soo dhaweynaynaa soo dareenkiisa ugu hor cabiro dadka halkan ku soo kulmay iyo markaasi qanacsanaantiisa soo noo hadlo walaalkeen soo dhawaw بسم الله الحمد لله ثم الحمد لله إلهي يا ما هذا أسقناتي مقعي هو عثمان محمد حسن هدينا دينكو علي مركل عثمان محمد حسن عثمان شوتي intaan maanta oo hal qabiil isla ah Baadcadde ah ayaa waxay isaarteen xil ah inaan gudoomiyaha dhalinyarada beesha aan noqdo run ahaantii Soomaalidu waxay tiraan in xil qaaday eed qad xilkan aad isaarteen waan idinka aqbalay waana ku maasantihiin
waxaan idinka rajaynayaa dhammaan dhalinyarada qofka markuu xil haayo wuxuu xilka ku hayn karaa qof walba ee maanta howlkan soo gashay ama qof walba oo dhalinyaro ah oo degan magaalada Jowhar inuu qofkaas ka warqabo lana shaqeeyo muhiimadda ma aha in la kala seexdo oo la yiraahdo gudoomiye wax walba asaa laga rabaa waxaan rabnaa wada shaqeyn iyo midoobid iyo laab furnaan runaantii maanta markaad ii dooranayseen qof waxaan helay 20 iyo cod halka oo helay ninka kaleento 8 iyo 10 cod walaalkay ahay ugu soo xigay 20 iyo cod idinka igaarsiiseen maanta qof aan jeebka wax u galiyay ama AFC aan wax ugu diray hawa yaraatay ma jirto waxaad aad ii wakiilateen kullee waa wax qabad iyo waxaad adinka iga aragteen waa idinka aqbalay waan idinku soo dhaweynayaa waxaan jeclahay markasta aan ku soo celcelinayaa inaad xilkaas aad ila qaadaan oo aad ila shaqaysaan wixii kale noo dhiman kullee anaga dib u sii dooran doono waana idin soo sheegi doonaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولكن عثمان وماسية آدي أيو ماسية هاي أنا إلهي سبحانه وتعالى وحقوق برينا إنه إلهي ولو قرب قاله هوشان وأنو إدمني ومانتا آتنا حسود بيننا ولا شين أيضا سي وهرجي ديسو ددك هالكان جوجو ترين كيدنا وعبرتو ولا شين دلسن محمد فرح بسم الله أنا دلسن محمد فارح هذا ينقول فرح سنة إن النقد قدومي كحجان كأور كدلنيرة بيش بعد عدة وأنكم هسنتين دمانتين دورشة هذه دورتين وأنا هاد علينا يا ولاش waxaan si qaas ugu mahad celinaa walaashay deeqo oo codkeedii u shubtay oo tanaasulada sameysay haatan halkan waxa uu yeerinaa walaalkeen Mohamed Abdi Abikar oo suna u dooranay xoghaynta guud ee dhalinta beesha baadacdo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته aad iyo aad u mahadsantihiin kasoo qaybgalkiina maanta halkan waxaa loo doortay gudoomiye ku xigeen ee xoghayn intooda waxaan leeyahay waa guuleysateen guush waa idin raacday teeda kale aniga ahaan xoghayn ayaa lee doortay waxaan iga tanaasulay dad walaalahay aad iyo aad u mahadsan yihiin waxa ay garteen insha Allah inaan ka soo bixi doono ayaa rajeynaya dhammaan dhalinyarada gobolka Shabeellaha Dhexe gaar ahaan beesha baadacade waxaan aad u rajeynayaa inaan isku xiri doono oo ayaga dhan aan hal meel isku keeni doono insha Allah ha joogan miiga ilaa baadiyaha ha joogan ilaa iyo magaalada ha joogan waxaan aad u dadaalayaa insha Allah inay isku xirnaadaan ee noqdaan hal qura waxaan aad iyo aad u sii rabaa in aan ka soo dhacsano dadkeena xildhibaanadeena iyo dhammaan dadka nool magaaladani Jowhar xaq aan ku leenahay insha Allah ta'ala aad iyo aad u mahadsantihiin soo dhawaada ما شاء الله ولكن محمد عبد أبيكر آدي أديو ماسين هاي شروينه هنا ما أنت هالكان أمسو أرورناي أمكسو كلناي هالك أيونو كادي وحانو كسو جبجبي دونا أنا جو نور دعسو عثمان وبرنامج كده هناي وأنا قال غيب قادنا يخشنا لودي ولكن إسماعيل أنت كلا عن كل مدونو المدينة اللي يراد أنا كردارك عند أنا المرة سحر الرباح كتيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaa farxad noo ah dhammaan waxaan filayaa inaan guulaysanay hadafka aan lahayna ay ahayd maanta inaan helno hoggaan maanta kadib xisaabaha dadka qaar ku maqan sida aniga oo kaleenta dadkii la xisaabi lahaa waa samaysateen laakiin dadkii la xisaabtami lahaa iyaga naftirkooda xisaab u baahan waxaa la yiraahdaa faraska waxaa la yiraahdaa jaydalka waxaa loogu dhuftaa inuu raacdada si laba jibaar marka jaydalka waa adinka haddaa saaxataan iyagana waa albaabadii furu karaan si furnayaan hore u soconayaan haddaad la xisaabtantaan inay aniga ila xisaabtameen iyo cid kale oo gasii sareysay agaasimiyaal iyo isheeg maxuu ahay anada agaasimi waaxidaan nahay agaasimiyaalka oo isheeg maxuu guud aad leedihiin waxaad leedihiin wasiiro waxaad adinka leedihiin ka soo gudub maamulka waxaad xaq u leedihiin
ama ha noqoto iisheeg muxuu ahaa beero ama ha noqoto caafimaad ama ha noqoto xanaano xoolo ama ha noqoto degmo wax kasta oo aad xitaa gudoomiye waaxidyo laaman intaba inaad ka mid tihiin xisaabaha idinka jira dadkii idin soo qoro idin soo bandhigi lahay waa dadkaas hadda tiimkan waxaa ka dhiman gudoomiye ku-xigeenka maaliyadda waxaa ka dhiman afayeen waxaa ka dhiman laamaha uu ka koobnay daraafkaas iyo iisheeg muxuu ahay ururka dastuurkiisa iyo sharciyadiisa kolley xogayaad u samaysateen asigaas iyo gudoomiyaha iyo ku-xigeenkooda iyagaa ka shuuraynaya iyagaa wixii oo dhammaystiran insha allah idin soo bandhigi doono wax walba oo mas-uuliyadda maanta iyagaa dusha ka saarteen dadkan laakiin ma ahan iyaga inay dantooda soo qabsadaane inay idii adeegaan aad ugu dhiibateen xilkaas mas-uuliyadda idii haayaan waa inay idii adeegaan albaabadii xirnaa iyaga ay furaan wixii xaquuqaha idinka maqnayn iyaga ay idiin keenaan inaad noqotaan marka dad firfircoon waxooda keensan karo codkooda keensan karo barnaamijkan mar waliba ahaado bulshada kaleenta sida wax u dhacsato maanta hadda adinka cidna idinkagama horraysa idaacadihii maxay sheegeen waxaad adi sheegteen idaacadihii kuma jiraan ama wax kaa maqan inaad sheegatay ama in waxaad heli doonto waxaad heshay midnana kuma jirto social mediaha wuxuu u samaysan yahay ama adiga maanta aad markaad facebook gasho youtube gasho waxaad raadiso waxay tahay warka aad raadinaysana waa qof adigoo kale intuu wuxuu sameeyey ama uu ka cabtay ama uu helay oo ku faanayo marka labadaba inaad adinka yeelataan meelahaad ka muuqataan ummadda maaragtay sidii wax u dhacsanaysa iyo sidii u xisaabtamaysa iyo sidii u shaqaysanaysa aad ka mid noqotaan anigana intaasaa farxaddayda ahayd waqtiga iyo juhdiga aad soo bixiseen inaan arko maantana aan taariikhda ay ii galayso intaan allah ka sokow inaan aniga maalin un iga soo bilaabatay waxa lagu sheegana waa inteennano maanta haddana in kale wax sii gaarsiiso nin walbana intaasaa waxaa lagu noqdaa dowlad qaran ilaa iyo meel walba oo aad rabto hadafkaaga iyo horumar waxaa lagu gaaraa wax shakhsi ka bilowdo shakhsiga ku xaga kan kale gacmahooda jira wax ku qabtaa marka lagu leeyahay shakhsiga fikir keeno waxaana ku dhaqanto ummadan dalkan hadda hal madaxweyne uu leeyahay Soomaa ma qof walba markaas madaxweynaha meeqa ku tartanto 20 30 ku tartanto hal qof aan qaato halkaas qof aan muxuu sheegna leeyahay warkiisna la sugaa go'aankiisna la sugaa saxiixiisna la sugaa marka maanta intaasoo dhan waxay ku yimideen waqti iyo juhdi aan soo bixinay in aan ka dhabayno aan dadkeena la xisaabtano aan xuquuqdeena raadsanno codka aad leedahay aad baxsato aad cidnana kaga barin qofka waxaad ogaataa xuquuqda aad leedahay aday kugu xiran tahay qofna kaama jirto marka mar labaad iyo mar saddexaad waa ku celinayaa codkaaga hooyada qofaan hadlin hooyadii wax ma siiso hooyada guriga maanta ma joogin markay wax la cunaa jirta dalgu reenta soo ku egtay dadka la artaa markay guriga wax kugu keenaan taasiskii loo umadiina la shaqaysto umadiina dhaxgalo social media iyo caalamka meel walba la dhikaarka waana mahadsantihiin waana ii farxad iyo guul aadan u mahadsantihiin insha Allah dhalinyaro dukaheniyo dalku wuxuu sugayaa warkan waynada lagu taadashayo dantu waa midnimo